taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa tababar u soo xiray saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Saraakiisha ayaa muddo 3 bil ah tababar ku qaadanaya xerada tababarka ee General Dhiga Badan, iyagoona qaatay tababar la xiriira hogaaminta iyo tabta dagaalka. Munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay taliyaha dugsiga tababarka, madaxa hoggaanka tababarka, taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil ka socotay Midowga Yurub. Ugu horreyn waxaa goobta hadal kooban ka jeediyay taliyaha dugsiga tababarka General Maxamuud Saney, isagoona sheegay in tababarkan uu ahaa mid heer sare ah isla markaana saraakiisha ay wax badan ka faa'iideen. Juhdi weyn ayaan u soo galnay koorsadan in la qabto sida rumaanta idinkana dadaal badan ayaad muujiseen ardayda oo discipliin adag iyo mataqaan dadaal badan sameeyeen. waxaana waaye maanteeto wixii lagu soo dadaalay miraheeda ayaa la guranayaa. marka waxaan rajeynaa waa ku mahadsan yahay taliyaha xoogga fikradda uu soo jeedshay iyo mataqaanaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka ugu horeysa qofka hadduu wax yaqaan ayuu wax qaban karaa. marka waa ku mahadsan yahay taliyaha xoogga fikraddan uu soo jeedshay iyo tababarkan oo mataqaanaa culays ka saaray in laga shaqeeyo sida rumaanta waana ku faraxsanahay. waxaan rajeyn doonaa inay koorsooyinka inta kaliya ayna ku ekaanin ay sii badan doonaan insha Allah taala. madaxa howlgalka Midowga Yurub General Fitleta ayaa sheegay in Midowga Yurub ay sii kordhinayaan tababarka sare ee saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la siinayo. During these past 12 weeks, the instructors provided the students with the skills on how to plan and prepare for operation, on how to be effective leaders, and how to best use planning tools such as maps and procedures. The hope is that all of you have acquired in-depth knowledge of these topics so that you will be able to become better leaders, better officers, and instructors. I really hope to see you soon at work, teaching to your comrades, leading combat units, or manning battalion or brigade headquarters. ugu dambeyn taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil guutooda waa Yuusuf Raage ayaa saraakiisha tababarka dhameystay kula dardaarmay in dalkooda iyo dadkooda ay ugu adeegaan aqoonta ay ka barteen intii uu socday tababarkaani. waxaan rabaa saaxiibadayda saraakiisha halkaan maanta ka qalin jabinaya ee heerarka darajooyinka kala duwan ah. dabcan haddii tababarkii uu suurta gala ma ahan waxa waa albaabkii waxa qabadka ama shaqooyinka aan ka gali lahayn, laakiin ma ahan albaabkii ay shaqadu ku dhamaan lahayd. micnaheedu maanta tababarku hadduu noo xirmay waxaan noo furmay albaabkii shaqada ayaa noo furmay. sidaas awgeed waxaan la soconaa ciidankeenu maantay baahiyaha ay u qabaan inay helaan tababaro, baahiyaha ay u qabaan inay helaan hogaamin sax ah, baahiyaha ay u qabaan inay helaan maamul sax ah. waa garan kartaan colalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa ka timideen xubin kastoo idinka mid marka waxay dareensan tahay baahida ciidanka ka dhex jirta waxa ay tahay dadka buuxi lahaa ee la rabo baahiyaha inay daboolaan, ee la rabo inay hormuud u noqdaan, ee la rabo inay hor kacaan nawaadinka. hadday noqon laheeday dhinac maamul, hadday noqon laheeday dhinac howlgelin, hadday noqon laheeday dhinac waxbaris iyo macallimiin iyo tababarkii, hadday noqon laheeday dhan kastoo ay noqon laheedba dadka la rabo inay gacanta ku qabtaan adinka.